dadka danyarta ah ee waqtigan degan magaalada Gabiley ayaa qayladaan u diray xukuumadda Somaliland in ay gurmad bilaadanimo ay la soo gaadho dadkani saboolka ah oo isugu jira dadka danyarta ah ee magaalada hore u deganaa iyo dadkii ay xoolaha ka laysay abaarihii waqooyiga Gabiley ka dhacay sanadihii la soo dhaafay runtii baanu nahay halkan soo galay marka dadkii aanu halkii kaga nimid xoolaha lahaana qaxootaan isla wada noqonay xooliyo dad waa isku itaal waa isla fadhiisteen dadkii meel u qabaansada waalaayay waxaan doonaynaa oo dawladayada ka codsanaynaa in dadka degdeg loogu gurmado ayaanu ka codsanaynaa oo calankayaga ka codsanaynaa oo dawladeeda ka codsanaynaa dadkaasi dib u dhig male dawlad iyo dadweyne midna male taakuleeya oo wax u qabta oo og kamid ahay ama aan ka imid waa qaxooti xoolo ma hayaan dad bay daadahaysanayaan ilkaa ku sitaan dadka meel ay dhigaan iyo meel ay dejiyaan iyagu gaar ahaan ma hayaan saacadani noogu daran tahay bishan iminkaan joogna noogu sii daran biyo la'aan baad xumo ugaadhii baa kogtay waaba xooliyadada qaxooti baan ku naho waxba kuma hayn waa markii saddexaad ee dadkani danyarta ah ay qayladaan u diraan xukuumadda Somaliland balse ilaa hadda wax gargaar ah kama helin daraana waan laahay halkayguna uu liita naftuna gooray bixi ilaahay baa rabbi baa ku shaqo leh imkana waxana leeyahay midmidaya أنا عبد فركاهن ويا ودريي سيها عرور بوها استهويدي وفاري كل عينا وعكسيتا وباقيا إن وحي ترى والدولة بكرة قاطو وعرورتا إنت وعسيسا عرورتا إنت وحالكينا والله قاطو dadkani saboolka ah ayaa waxa sidoo kale saameyn ku yeeshay sixir bararka dalka ka dhacay doonayo shariir hadaan doonayo doolarna lagu baayacayo hana laga day lacagta Soomaaliya dalka loo soo saaray waxa lagu iibsan leenahay Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley.